الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين maanta Ramadaan 27 tahay waxaan joognaa gobolka Hawd magaalada Beligobadle waxa halkan noogu soo dhamaaday tartankii bisha Ramadaan ee magaalada Beligobadle waxaan u mahadnaqayaa maayarka degmada Maarshiine oo runtii mar walba sportska iyo dhalinyarada iyo magaalada ba howlan waxaan isna mahadnaqayaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliland Khalid Jilaal Jaamac madaxa garsoorka Axmed Yaasiin iyo Suldaan Gahayr oo runtii isna team halkan magaciisa ku ciyaarayeen waxa kale oo mahadnaqaynaa shirkadda weyn ee company-ga Lis oo tartan kasta Ramadaan bisha Ramadaan meel geliya oo nala qayb qaatay aad baan ugu mahadnaqaynaa shirkadda Lis oo runtii koobkan meel gelisay maayar waxa 8 kooxood oo degmada Beligobadle dhamaantoodba ah oo runtii bil walba markaan ugu qabanno waan kugu soo dhaweynaa maayar xafada xiritaanka waxaan u mahadnaqaynaa team ku guuleystay Suldaan Gahayr ku ciyaariyay ama Lis ku ciyaariyay magaca Lis iyo shirkadda Suldaan Gahayrna sponsor u haayeen iyagana waan dhiirigelinaynaa oo hambalyeynaa kooxda laga guuleystay DSTV ku ciyaaraysanayna waxa weeye isduu Ridwaanna sponsor gareynay iyagana waxa weeye waan u mahadnaqaynaa alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan ku sugannahay garoonka FA Stadium ee Beligobadle uu ka socday koobka Ramadaan bisha Ramadaan koobkaasi oo ay meel gelisay shirkadda Lis waxaan u mahadnaqayaa ugu horeyn maayarka degmada Beligobadle Maarshiine oo aan uga hambalyeeyo horumarka uu ka sameeyay gobolka suldaanka mulkiilaha garoonkan ahna gudoomiyaha degmada Maxamed Mooge gudoomiyaha garsoorka wakiilka xiriirka kubadda cagta ee gobolka dhamaan waa salaamaya kole hadalku gaaban yahay waxaan u hambalyeeyaa kooxdii qaaday koobkan ee ku ciyaaraysay magaca Lis oo maalgelinayna saaxiibkay suldaanka oo aad ugu mahadnaqayo oo mar walba magaciisa ku maqleeyay tii ciyaaraha socday sanadkii hore sanadkanba waxaan leeyahay waa hambalyo xiriirka kubadda cagta Soomaaliland saa ogtihiinba ama balaqaadku yahayba goor kasta iyo xilli kastaba naga go'antay inaanu meel kasto oo kubadda cagta ay booqano shalay waxaan joogay degmada Cadaadley maantana waxaan joogaa Beligobadle taas waxay ku tusaysaa inaanu ciyaaraha u helanahay inaanu ciyaaraha dhiirigelin loo garab istaagno inay naga go'antay inoo soo gabagabeeyay ciyaarihii tartanka Ramadaanta Kariimka ah ayaa mahad leh marka labaad waxaan mahadnaqayaa shirkadda Lis oo inoo dhigtay ama inoo qabatay koobkan waxaan kaloo mahadnaqayaa gudoomiyaha degmada Maxamuud Haybe ahna mulkiilaha garoonkan iyo garsoore xiriirka golayaasha ku xigeenka xiriirka golayaasha Khalid Jilaal iyo garsoore Axmed Yaasiin Suldaan Gahayr oo isaguna mar walba ka qayb qaata ciyaaraha ka socda gobolka ama horumarka gobolka ka socota aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa marka labaad waxaan u saddexaad u mahadnaqayaa kooxdii kubadda cagta ee maanta qaaday koobkan kuna ciyaaraysay magaca Suldaan Gahayr ama kooxda Lis ku ciyaaraysay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhalinyarta kale ee gashay kaalinta labaad aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sida wanaaga sharafta ixtiraamka badan ay noogu soo dhamaaday nabadgelyada badan ay noogu soo dhamaaday ciyaarihii Ramadaanta Kariimka aad iyo aad baan u mahadnaqayaa